khalaa'iqda ilaahay baa abuuray. ilaahay casa wajalla isagaana kala sarreysiiyey oo kala fadilay. qarniyadii baa ilaahay kala fadilay oo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa khayru lquruuni qarnii huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum. qarniyada qarnigaa aan joogo ayaa quruunta ugu khayr badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. haddana waxaa ku sii xiga buu nebigu yihi qarniga ku sii xiga. haddana waxaa ku sii xiga buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam qarniga ku sii xiga. haddana bilihii baa ilaahay kala fadilay oo 12 bilood bil ahaan bisha ugu fadli badan waa bisha ramadaan weeyaan. maalin ahaan haddii la eegana maalmaha ugu fadli badan waa 10 dilxija. habeen ahaan haddii la eegana habeenada ugu fadli badan waa habeenada la yidhaahdo 10 alawaakhir min shahri ramadaan. dhulkii baa ilaahay casa wajalla ayuu kala fadilay oo dhulka meelaha ugu khayr badan waa masaajida. axabu lbilaadi ila allahi almasaajid wa abgadu lbilaadi ila allahi alaswaaq buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. dhulka meelaha ugu khayr badan ee ilaahay agtiisa looga jecel yahay waa masaajida. meelaha dhulka ilaahay agtiisa loogu necab yahayna buu nebigu yihi waa aswaaqda weeyaan. masaajidiina ilaahay casa wajalla uu sii kala fadilo masaajidka xaramka maka ayaa ugu fadli badan. salaada xaramka maka lagu tukado waa 100,000 weeyaan. xaramka madiinana waa 1,000 weeyaan. ilaahay baana casa wajalla sidaa dhulka u kala sarreysiyo u kala fadilay. salaada maka lagu tukado ama khayrka maka dhexdeeda lagu sameeyo xadul xaramka dhexdeeda waa 100,000 weeyaan. haddaad sadaqa dhiibtid waa 100,000 ajarkeedu. haddaad soontid ajarkiisu waa 100,000. haddaad qur-aan ku akhrisato ajarki waa 100,000. haddaad dikri ku samaysa ajarki waa 100,000. haddaad salaad ku tukatana waa 100,000. 100,000 waxay tahay waa 55 sannadood iyo 6 bilood iyo 20 habeen qiyaastii. hal salaadoo maka aada ku tukatay baa ka fadli badan 55 sannadood iyo 6 bilood iyo 20 maalmood. 10 salaadood qofka maka ku tukadana ka warama. dadka weligoodba maka ku nool ka warama iskaga tukanaya xaramka maka ama masaajida maka ku taalo ku tukanaya. ilaahay casa wajalla dhulka isagaa sidaa ilaahay dhulka u kala fadilay. watiini wazaytuuni wa tuuri siniin wa hada albalad alamiin waa kii ilaahay lahaa. ilaahay jala wacalaa shajaratu tiin iyo zaytuun ayaa ilaahay ku dhaaranayaa. waa 2 geedoo barakaysan weeyaan. dhulkaa la barakeeyana way ka baxaan ee ardu shaam la yidhahday ka baxaan. tuur baa ilaahay ku dhaaranayaa, jabalu tuur waa buurtii ilaahay casa wajalla uu nabi muuse dusheeda uu kula munaajoodo kula hadlay weeyaan. baled al amiin baa ilaahay ku dhaaranayaa, waa beledka maka weeyaan, meesha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku dhashay ee xundhurtii nebigeenu ay ku duugantahe nebigeenu ku barbaaray ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku dhaaranayaa. maxaa ilaahay dhulka ugu dhaaranayaa? wuxuu ugu dhaaranayaa bimacnaa waa dhulka kale ka fadli badan weeyaan. makana dhulkay ugu fadli badan tahay. qudus iyo agagaarkeygana waa ardulmaxshar, waana ardul ambiyaa, waana dhulkii nebi ibraahim calayhi salaam iyo ambiyadii reer bani israa'iil badankoodu ay ku noolaayeen ama ay ku aasan yihiin weeyaan. buurtii nebi muuse calayhi salaam korkeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kula munaajoodu kula hadlay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku dul dhaaranaya. uu leey buurtaasina waan ku dhaartay. laanna khaaliqu markuu dhaaranayo makhluuqaadkiisa meeshuu doonuu ilaahay ku dhaaranayaa. laakiin makhluuqu hadday dhaaranayaan ilaahay kheyrkii inay ku dhaartaan ayaka uma banaano.